daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka warbixinada iyo wareysyada runta news journal oo aad si joogto ah ugala socotaan Soomaaliya iyo Seattle Washington ee carigaasi Mareykanka. filan waayay la tahay inay xurnimo ku joogaan ciidda dalkooda hooyo kadib sanado ay sifaan sharci ahayn ugu soo qaateen xabsiyada Liibiya. waxaan ka nimid caasimadda Liibiya Trabulus xabsiyadeeda ugu dhaadheer Daarushaka Goorshaar iyo Shaarisawiya aad iyo aad baan faraxsanahay maadaama aan ciideedii dalkii iyo ciideedii hooyaday iyo dalkayga in xorriyadooda ay helaan dalkoodana dib loogu soo celiyo 97 kan muwaadin ee ka soo degay garoonka aadan cadde waxa ay ka dhalatay kulan 29 Diseembar 2021 Istanbul ku dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha golaha madaxtooyada Liibiya mudane Maxamed Yunus Al-Menfi kulanka oo daarnaa xoojinta iskaashiga iyo sidii ay xorriyadooda u heli lahaayeen muwaadiniinteena ku xiran Liibiya. Inta wallahi hortaadii maanta aan shucuurtada iyo dareenkayga ka hadlo dalkayga aad baan ugu faraxsanahay meeshaan imid Soomaaliya waxaan u sheegayaa in ay mar walba qaniyahay tahay way maanta anigu Soomaaliya ka tagay dalkayga waxaan haystay dal ciyaar laakiin maanta waxaan ogaaday in aan muwaadin Soomaaliyeed oo dhab aan anigu yahay waxaan u sheegay dhalinyarada ku fikiraysa in ama ay taariikhda ama ay dalkooda ka tagaan waxa la dalkina wax xiriiraan taamijto Soomaaliya aan walaata ayaan leeyay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad baan u macdaleeyaa سينا رنتي والله نبطي حتى ديما إلى بتشرب مشريا مدحونا وعلى الصومالي ذا أما دليل خير كي كفكر سائن أي تاريخات يدلكوا ذا كتيان والله ما تدلكوا ذا ولا أنت أما واحد أما مشرب أنا كي قالوا على الصومالي أنا ولا تبغى كبحيا الصومالي أنا ولا waxaa si daal iyo quus aan lahayn uga socda dadaal xoogan oo dalka dib loogu soo celinayo dhibanayaasha Soomaaliyeed ee ku jira jeelasha caalamka qorshaha baadigoobka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhiban xabsiyada caalamku waxa uu qayb aan ka go'in ka yahay siyaasadda ka jawaabidda baahiyaha dadweynaha ee madaxweyne Farmaajo dalka ku soo hogaaminayay tan iyo Febraayo 2017 waqtiga uu hogaaminta dalka loo dhaarshay madaxweyne Farmaajo waxa uu xoogga saaray sidii dalkooda dib loogu soo celin lahaa dhammaanba muwaadiniinteena ku xiran dalalka caalamka si ay qayb uga noqdaan geediga dib u dhiska dalka iyo dawladnimada Soomaaliya mar waliba oo madaxweyne Farmaajo helay casuumaadaha madallada iyo shirarka dalalka caalamka ku lafagurayaan ajendayaasha markaasi taagan waxa uu ahmiyad gaar ah siinayay la kulanka hogaamiyaasha ay dalalkooda ku xiran yihiin muwaadiniinteenu si ay u helaan fursad u dhiganta tan ay haystaan muwaadiniinta kale ee dalka ku nool qorshahan oo dawladdu gelisay dadaal dheeriya waxa uu soo bilowday 23 Luulyo 2017 xilliga oo dalka dib loogu soo celiyay tiro kamida muwaadiniinteena Soomaaliyeed ee ku xirnaa dalka Itoobiya 12 Diseembar 2017 waxa sidan oo kale dalkooda loogu soo celiyay maxaabiis ku xirnaa jasiiradda Seychelles 8 Maarch 2018 maalinimada xada ay ahayd markii dawladdu ku guuleysatay in madaarka Muqdisho ay soo caga dhigato diyaarad siday muwaadiniin badan oo ku dhibaateysnaa xabsiyada dalka Hindiya sidoo kale dalalka maxaabiista Soomaaliyeed oo ay ku xirnaayeen isla markaana lagu guuleystay in dalkooda dib loogu soo celiyo waxa kamid ah Iiraan iyo dalka Saudi Arabia dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku howlan soo deynta maxaabiis badan oo ku jira dalal badan oo caalamka ku yaala Soomaaliya fadlan ku dhufo like dhammaan baraheena runta news journal ee YouTube, Facebook iyo Instagram hana ilaabin inaad saaxiibadaada la wadaagto una share gareyso wararka xaqiiqada ku dhisan